anigoo ah Maka Maxamuud Yuusuf waxaan maanta halkan la igu guddoonsiiyey labadayda baloog oo sabrloogada waxa ay guddoonsiisay kambaniga aadka u quruxda badan ee Mabsa Group waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay shaqada ay qabteen iyo ugu dambeyn sabrloogada ay guddoonsiiyeen dhulkana anoo ku faraxsan baan gatay waana dhul aad u hawo macaan oo aad u qurux badan oo u degan anigoo ah Muuse Salaad Bucul maanta halkan waxaa imaaday Mabsa ayaan dhul ka gatay boosku yaala Phase 15 meel yiraan ka gatay lacagtii markaan dhameeyay maanta waxay guddoonsiiyeen warqadii lahaashada baloodka ee sabrloogada marka intaasaan halkan u imaaday farxadeyda lama soo koobi kara waana mahadsan yihiin inta kadib waxaan dhihi lahaa dhammaan Soomaalida inta af Soomaaliga taqaana meel kasta oo adduunka ka joogaan shan daqarood kambuni aamin oo wax lagu darsan karo inay wax ka gataan waan idin salaamaya magacaygu waa Aamin Saciid Qaare waxaan ka tirsanahay dadka Mabsa Group ka iibsaday booska maantana waxay igu wareejisay title-kayga waana ku faraxsanahay xafladda aan ka soo qayb galay si sharafta badan ay nagu casuumeen iyo title-kayga igu wareejiyeen sida quruxda badan waana ku qanacsanahay adeegooda ay noo adeegeen magacaygu waa Maxamed Xuseen Cali waxaa ka mid ah dadka oo maanta title deed-ka qaatay ani aad u aaminsanahay shirkaddan la dhaho Mabsa waayo waa dad aad loola shaqeyn karo waa dad fiican oo la aamin karo ani sanadka la soo dhaafay lacagta inaan dhiibo bilaabay ilaa haddana weligay wax dhibaato wax mushkil wax oo muran kuma arkin dadkan waa dad lala shaqeyn karo waa dad adeegyadooda aad u fiican yihiin hadaa wacdo telefoonka ka qabanayaan wayna kula shaqeynayaan marka maanta waxa kamid ahay oo aan ku faraxsanahay xafladan inaan uu siiyay title deed-kana waa la siiyay dadkana waan ku faraxsanahay waana lala shaqeyn karaa Mabsa ha noolaato marka dadka kalena waxaan dhihi lahaa Mabsa waa kambani la aamin karo adeegyadooda iyo shaqadooda aad u fiican tahay way nidaam fiican yihiin macaamiishooda iyo dadka sidoo ula xiriirana aad u fiican tahay marka dadka waxaan dhihi lahaa Mabsa waa la aamin karaa dhul waa ka gadan kartaa ganacsi ha ahaato guri ha ahaato wax walbana way ku sameynayaan magacaygu waa Cabdulqaadir Aadan Xuseen waxaan ka mid ahay dadka maanta qaatay title deed-yada Mabsa Group Agency waxaan ka qaatay 3 bilood alxamdulillah hal sano iyo waxay igu qaadatay 2 bilood inaan dhameeyo lacagteydii maanta ayaa igu wareejiyay waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo dadka maanta la wareegay title deed-koodii Mabsa waa shirkad la aamini karo mar walba anaa leh adigaa leh waa meel aad meel gashan karto waxaan leeyahay Soomaalida meel walba joogaan Mabsa Group Agency waa mid la aamini karo qof walba oo isku haleyn karo saad arkaysaan maanta waxaan hayaa 3 title deed oo aan ka qaatay groupkan laga bilaabo 2024 bishii afraad laga bilaabo ilaa maanta bishii lixaad tahay ayaan qaatay lacagtina waa iska dhabay alxamdulillah falla alxamdu wal minna waxaan leeyahay Mabsa ku soo dhawaada annagaa leh adigaa leh ku soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh